soo dhaweynta iyo hadallada qorqorxan iyo dhiirigelinta waa idinkaga mahad celinaya dadka halkan jooga xildhibaano iyo wasiirro iyo senataro cid walba oo ila socota iyo kuwa kaloo imaan doona oo badan iyo shaqaale badan oo ila shaqeeya waxaa kulligood ka go'an inay idinla shaqeeyaan inta dowlad goboleed galmudug ah oo dhammays ah dhidibada loo aasayo haddii ilaahay yiraahdo meel aad u fiicanna waa soo gaarsiisan idinkaa soo gaarsiiyey waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo haddii aadan soo dhoweyn lahaynina dadkii idin yimid haddii heshiis aanu halkan ka dhici lahayn haddii degmo walba iyo tuulo walba oon tagnay aan nala soo dhoweyn lahayn haddii aadan aqbali lahaynina in qoryaha la iska dhigo haddii aan la aqbali lahayn in reer galmudug ay muujiyaan inay dowladnimo rabaan idinkuna niyaddan ma yeelateen dadkii ila socdana niyaddan ma yeesheen adduunyadana idinma soo jeesateen ma hadda horta ilaahay ka sokow idinkaa iskale waa mahadsantiin galmudug wixii haddii laga sheegi jiray inaanay isu imaan karin ama amniga ka shaqayn karin ama isu tanaasuli karin waa muujiseen intaan idinla joogay dhammaystirka unbaa idinka dhiman idinkaana la rabaa inaad hormuud ka noqotaan haddii ilaahay yiraahdo waxaan soo galnay wejigii labaad ee shaqadii aan haynay oo qaybteedii ugu cuslayd ah taasoo ah in la galo weji beelihii reer galmudug oo dhan la isugu keeni doono magaalo madaxda oo dib u heshiisiin kooban oo bilow ah la geli doono inta aan wejiga ugu dambeeyo doorashada la gelin doorasho xor xalaal ah oo anfacda dhammaan shacabka reer galmudug maadaama marka idinku aad tihiin dadkii gogasha fidinayay inaad gogasha fidisaan dadka soo dhoweysaan qalbi fiican u furtaan waa noo sheegteen waxaa la rabaa weliba qof walba oo dhib sheegtay inaad guryahooda ugu tagtaan degmadooda ugu tagtaan meel walba ugu tagtaan sababtoo ah leeskuma haysto dhuusamareeb inay tahay magaalo madaxdii galmudug waxaa laysku haystaa ma laga shaqaysiin karaa taasna idinkaa laydinka rabaa dooddu marka ma aha ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la socday ma joogaan magaalo madaxda galmudug qof walba way ogoshahay dooddaas iyada ah inaan magaalo madaxda joogno magaalo madax loo dhan yahay qof walba u furan qof walba uu dareemayo inuu qaybtiisa ku leeyahay la wada leeyahay lagu shaqayn karo laga shaqaysiin karo doodda dadku ay qabeen waa taas inteeda badan way soo afjarmaysaa inta dhimanna waxay ku afjarmaysaa hadalladeen afkiina ka maqlaaya haddii laga dhabeeyo haddii ilaa yiraahdo galmudug dhammaystiran oo isku toosan oo horumarsan waa Soomaaliya oo horumartay waana aaminsanahay inaa xaq u lahaadaan in la idinla shaqeeyo mid waa marka arrinka dib u heshiisiinta iyo arrinka doorashada oo la rabo inaa idinku gacan ka geysatiin dadkii isu soo dhaweysiin wax ogolaatiin cid walba wax u ogolaatiin midda kale oo la muhiima oo aan rabno inaan ku dhinac wadno laydinka raba caawinaadeeda inaad bixisaanna waxaa waaye in galmudug ay dhisanto haddana degmooyinkeeda qaarkood cadow uu dadkiinni haysto oo magaalo madaxdii meelihii ay xakuntay aanay idiin imaan karin galmudug noqon mayso waxaa galmudug kala dhiman soo maha waxaan rabnaa dhallinyaro iyo odayaal iyo gabdho iyo madax cid walba oo halkan joogta waxaan rabaa inaan u sheego maanta shaqada aanan berri bilaabayn oo maanta aan wadna iyaduna waxay tahay in la xoreeyo tuulo walba iyo degmo walba oo galmudug ka mid ah meelihii aan tagnay oo dhan waxaa laga soo diiwaan geliyaa ciidamo meelo kalena waa laga sii diiwaan gelin doonaa halkaana la isugu keeni doonaa meeshii
ahaan jirtay sharafta ciidamada qalabka sida 21aad ay ku taalay ayaa la isugu keeni doonaa markii la isugu keeno oo halkan la isugu ururiyo lagu tababaro waxay qaban doonaan shaqo qaran oo ah meeshaan inay magaalo madax noqoto degmooyinka iyo tuulooyinka idin hoos yimaadana in la xoreeyo si ay magaalo madaxdooda iyaguna u yimaadaan ugu munaafacadsadaan oo aan jeedadka loo gelin idinka marka waxaa la idinka rabaa ama ahaada madax ama odayaal ama dhalinyaro ama saxaafad ama gabdho waxaa la idinka rabaa inaad ogaatiin ma aha waxaa la idinka rabaa inaad dad soo dhawaysiin inaad gobol fidisiin keliya waxaa la idinka rabaa inaad ogaatiin dad Soomaaliyeed oo walaalihiina rajadoodii inay ku xiran tahay idinku sidaa u dhaqantaan dad Soomaaliyeed oo walaalihiina mustaqbalkoodu inuu ku xiran yahay idinku sidaa wax u ogolaatiin idinku sidaa isugu tanaasushiin sharafti iyo karaamadii galmudug waxay ku xiran tahay in qof walba oo dhibaato haysato oo maanta aaminsan joogitaanka anigaan idin la joogo iyaga mustaqbalkooda inuu wax ka tarayo haddii aan rajadaas ka baabi'ino waa rajo annagu aan ku ciyaarno hadafkeenu marka waa inuu ahaado magaalo madaxdii galmudug oo noqoto magaalo madax Soomaaliya oo dhan laga yaqaano maamul galmudug oo noqdo maamul madaysan oo dhammaan reer galmudug isu keena shacabka reer galmudug meel walba ay joogaan oo laga xoreeyo cadowga si marka cadowga looga xoreeyo reer galmudug waa ogtihiin inaanay amni ahayn in qof walba oo naga mid ah hub ay haysato kulligeen inaan hub wada haysano oo isku difaacno uu naga fakanayo annaga isku dhufanayno Soomaha sidaas nidaam dawladeed inaan dhisano waayo oo dhaqanka ahaa inaan aamino amnigu wuxuu ku jiraa inaan qora haysano waa inaan ku bedelnaa dhaqan ah amnigu wuxuu ku jiraa qoryaha inaan meel aan wada aaminsanahay u dhiibno waqtiga la isugu faani jiray tiknikada waa la soo dhaafay waqtiga hubka waa la soo dhaafay waqtiga maskaxda lagu dagaalami jiraa la joogaa reer galmudugow wiilashan dhalinta yar oo halkan joogay iyo gabdhaha mustaqbal ay u baahan yihiin laakiin kuwa ceel dheer joogay ceel buur joogay xarar dheer joogay iyo kuwa galhareeri joogana mustaqbalkooda idinku xiran yahay kuwaas waxaa la rabaa inay tartanka aad gobolada kale kula tartamaysiin ay qayb ka ahaadaan cidna marka nus kuma tartami karto shaqo badan idin taal marka gaar ahaan caasimadda magaalada Dhuusamareeb dadkiina jooga caasimadda waa la wada leeyahay laakiin idinka la idinkugu yimado hadda jooga qof walba in loo furo waayo laakiin waxaan codsanayaa labada arrin oo idin sheegay dib u dhiska dalka gaar ahaan dhisidda dawlad goboleed dhammaystiran oo galmudug la yiraahdo iyo dhammaan gobolada ama degmooyinka iyo tuulooyinka nala ka haysto inaan xoreyno ciidankana waa haysanaa shaqadii waa socotaa hadda xerooyinku waa ku bilownay dawladdu 100% ay idin garab taagan tahay halkan waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo taariikh ayay ku lahayd dawladda hore Soomaaliyeed waa meeshii cadowga laga difaaci jiray waa meeshii xudunta dalka ahayd waa meeshii amniga laga sugi jiray dhaqankii iyo mad ka fiican oo hadda maskaxa ku salaysan ayaan rabnaa inaan soo celino waxaan markii idinkaga mahad celinayaa inaad rabtaan in ay abaal gudaan inaad rabtaan in ay garab istaagtaan inaad rabtaan in ay caawisaan waxaan idinka codsanayaa galmudug inaan dhisno cadowgana ka xoreyno waa mahadsantihiin